runtii maanta markaan salaanta guud inta uga baxo oo wada salaamantihiin farxad gaar ah noo tahay in maanta aan ka soo qayb galno ama inii nimaano soo booqano kulan kan qiimaha leh gudoomiyaha ayaa guud ahaan warbixinta dhinaciisa dhameeyay hadalkayga waxaan u qaybin doonaa dhowr kelmadood dabcan degaan baan ka nimid oo marka hore warbixintiisa kooban dalkii waa nabdoonaa roobab hordhac ah ayaa hadda deegaanada qaybtood ka bilowday labadii sano ama sanadii markii u dambeeyay dhinaca roobabka oo muddo badan dalkan abaar culus haysan jirtay waa ilaahay mahadiis isbedel baa ka jira dabcan dadkeenu intiisa badan waa reer guuraa roobku markuu yaraado dhibaatooyinka ugu badan ayaa dalka qabsada muddadii u dambeysay saddexdii xilli oo u dambeysay roobab fiican baa la helay haddana waxaan rajeynaynaa dayrta oo bilow ah iyadoona inay kuwii hore oo kala noqoto dabcan nimco walba nusqaanteeda leh saameynta uu yeesho ugu badan waxaa ka mid ah in kaabayaashii waddanka khaasatan jidkii u dhexeeyey boosaaso ilaa iyo gaalkacyo oo garow ilaa gaalkacyo hore u burbursanaayay inta boosaasii garow u dhexaysana runtii dhaawacyo badan buu soo gaarsiiyey qaybihiis hadda gacanta lagu hayaa in wax laga qabto oo dowladda puntland iyadoo isku tashanaysa ayay howl ka wadaa qaybaha kaleetana caalamkana saacidana waan u qaylinay laakiin uma aana fariisano howlaheennina intii aan kari karna aan sii wadnaa dhinaca amniga guud ahaan degaanku waa xasiloon yahay muddooyinkii u dambeeyey puntland waxay waday dib habeyn dhinaca ciidamada ah runtii wax badan baa lagaga guulaystay intii tababaradooda kor loo qaaday maadaama muddo dheer qaybtooda ay dagaallo kula jireen buuraha galgala iyo dhinaca kale ee bariga ahba qolyaha nabadiidka oo ku kooban labada buurada magaalada boosaaso dhinacyada ka kala xiga muddadii u dambeysay runtii waxaa dhacay guulo waaweyn oo labada meeloodba meelihii ay joogeen oo marmar ka soo bixi jireen hadda ma soo baxaan meelahoodii baa loogu tegay in badanna waa laga qabtay qaarna waa laga laayay fariisimo meelaha qaybtooda ay kasoo dhawaan jireen oo buuro aada u adag oo u baahan in lug lagu galana wax badan baa ka hirgalay ammaanku magaalooyinka waaweyn muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ka dhici jiray falal amni darra oo inta badan iyagu geystaan khaasatan magaalada boosaaso iyo gaalkacyo isbeddel aada u xoog badan ayaa ka jira sidoo kale waxaa runtii u baahan in la xuso heshiiskii puntland iyo galmudug ku dhex maray magaalada gaalkacyo oo qeyb weyn isna ka qaatay wada shaqaynta labada maamul si loo xaqiijiyo sugnaanshaha amniga guud ee gobolkaas gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo laba maamul ay ka kala taliyaan waxaan si gaara uga mahad celinayaa dadkii waktiga badan ku bixiyey
oo halka uu nagala fadhiyo cabdi qaybdiid iyo akhyaartii kaleeto oo muddada dheer joogay oo nabadeynta gobolkaas qaybta weyn ka qaatay. sidoo kale shirkaas gaalkacyo hadalkayga dib baan ugu soo noqon warbixinta markaan ka bixiyo waxaa ka dhashay shirarka hadda halka laga xusay ah in lagu ballamo garow dhuusamareeb 1 iyo 2 anoo kaa usoo noqon doono markaan xaaladda kale ka hadlo. dabcan guud ahaan dalka waxaa ka dhacay covid-19 adduunka oo dhanna ka dhacay, dhaqaalaha saameyn weyn ku yeeshay, dakhligii iyo isu socodkii saameyn ku yeeshay, dalka intiisa kale iyo adduunyada ayaan taas la qabnaa. xaaladaha kaleeto gobolku uu ku sugan yahay intiisa kaleeto waxaa la oran karaa marka loo fiiriyo maraaxiishii lasoo dhaafay wuxuu ku sugan yahay marxalad deganaansho iyo amni oo la oran karo meelaha ugu roon ee Soomaaliya ayuu ka mid yahay. maamulka iyo shacabka oo iskaashanaya runtii howlahaas ku saabsan dalka nabadeyntiisa, dejinta xasilintiisa iyo guud ahaan wixii kaabayaal iyo horumar oo la qaban kara ka shaqaynteeda oo ah shaqo aanan joogsi lahayn, dhammaadna lahayn, hadba intii suuragal oo markaa la kari karaa ka socota. waxaan rajaynayaa intaas inaan uga baxo warbixinta guud ee aan degaankii aan ka imin. waxaan sidoo kaleeto aan rabaa inaan ku noqdo heshiiskaas gaalkacyo ku dhex maray labada dowladeed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah wuxuu horseed u noqday bulshada deegaanadaas oo muddo badan kala tabasho iyo shaki ku jiray inuu meesha ka saaro oo wada qabsi iyo horumar uu halkaa ka dhaco. kulamadaas waxay gogol xaar u noqdeen oo runtii heshiiskaas uu saldhig u ahaa heshiiskii lagu gaaray dhuusamareeb oo isugu yimaadeen maamulada madaxda shanta dowladeeda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee hadda sida tooska ah uga tirsan dowladda federaalka ah. shantaas xubnood oo kulankii u xigay uu muddo sanad ka hor ama 2 sano ka hor waa keligood inay is arkaan. shirkii Kismaayo ayaa ugu dambeeyay 2018 inuu ahaa aan filayo. shirkaas markii aan isugu nimid runtii wuxuu horseeday in la wada hadlo, in wada shaqayntii la soo celiyo, in Soomaali si midaysan loogu adeego. senatarro aad u fara badan oo halka fadhiya ayaa qayb weyn ka qaatay iyo madax kaleeto oo Soomaaliyeed oo jeclayd in xaaladda cakiran ee lagu jiro laga baxo. waxaa ka soo baxay warmartiyada aad wada akhrisateen. waxaa ka dhashay shirkii dhuusamareeb 2 oo runtii isagana ay ka soo qayb galeen madaxdii dalka u sarreysay ee madaxweynihii iyo prime ministerka xilligaas. shirkaas wuxuu isaguna runtii la faguray xaaladda dhabta ah ee dalka hadda uu ku jiro oo muhiimadiisu ahayd in dalka doorasho la isla ogol yahay ay ka dhacdo oo xilligeeda ku dhacdo, taasoo ahaa dareenka cid kasta oo mas-uuliyadday doonta ha hayse ay mar walba ay sheegi jirtay, ama dowladda dhexe ha ahaato ama dowladaha xubnaha ka ha noqdaan ama baarlamaanadka labadiisa aqal ama cid kasta oo siyaasadda Soomaaliya dareynaysa. hadalkaas wuxuu ahaa mid carabka lagu wada adkeeyey oo saldhig u noqday in la yiraahdo haddaba halkaas meeshii looga guuri lahaa hal helo. runtii shirkaasi saldhigiisu isna wuxuu raacay waddadii hore oo ku saabsanayd in labada in waqtigeedii uu ku dhaco doorasho la isla ogol yahay inay dhacdo. wixii markaa ka dambeeyay dabcan halkaas waxaa iyadana saldhig noqotay madaxweynuhu uu codsaday in uu ku noqdo magaalada Muqdisho la soo tashado baarlamaankii halkaa jiray shir 15 Agost dib la isugu soo noqdo. muddadaa wixii ka dambeeyey oo shirku uu soo idlaaday dabcan dalka isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay, prime ministerkii baa meesha ka baxay,
oo iyadana runtii saameynteeda siyaasadeed ahayd qaybna uu ka ahaa heshiiskii dhuusamareebtu. intaa wixii ka dambeeyey waxa aan sugaynay isbeddelkaas oo ah hay-addii fulin lahayd wixii lagu heshiiyey inay soo buuxsanto. shirkii 15-ka loo ballansanaa madaxweynaha iyo 3 dowladood oo xubnaha ka ah ayaa yimid. madaxweynaha Jubbaland xanuun dartiis buu u maqnaa haddii ay wax u weheliyeenba, laakiin Puntland waxyaabo ay tabanaysay oo lahaa arrimahaas inta ka horeysa hal la buuxiyo darteed ayuu u qabsoomay u imaan weyday. runtii iyadoo intii badneed wax laga xaliyey la jeclaa in la yimaado, haddana waqtigii kuma uusan simin, ma aysan dhicin. waxa aan ku jirnaa waa process. haddii taasi aysan dhicin, dabcan Puntland hadda waxay xamar u timid wixii ay ka baaqsatay iyo sababahay u baaqsatay inay halka ay kusoo idlayso oo wixii ka dhiman heshiis loo dhan yahay oo ahaa qodobka koowaad oo dhuusamareeb 1 iyo 2 labaduba wuxuu ahaa in mar walba la helo doorasho la isla ogol yahay oo loo dhan yahay. taasaana saldhig u ah horu socodka dowladnimada Soomaaliya. dabcan isaga sheekeyn mayno dalkeena maraaxiishu soo maray 30 sano u dambeeyey, marka laga soo tago dowladdii dhexe ee 1990kii burburtay, maraaxil kala duwan buu soo maray. marka laga soo tago intaa 10 sano u horeeyay 2000 wixii ka dambeeyey dalka oo shirkii carta waxaa is soo tarayay nidaamka dowladnimo ee hore loogu soconayo. maalinba waxbaa lagu darayay, maalin walba wax lagu darana waxbaa ka dhinaanaya. waxaana mar walba lagu tilmaamaya marxaladda aan ku jirno inay tahay geedi socodka dib u dhiska dowlad Soomaaliyeed. processkaas sidiisa oo process markuu socdo waa maraaxiisha ugu adag oo uu yimaado kala aragti duwanaanta siyaasadeed oo la rabo si siyaasi in loo xalliyo. dowladnimadu marka process lagu jiro intii siyaasiyan loo xalliyaba waxaa la rabaa sharci in loo bedelo, kadibna maamul dowladeed loo bedelo. tallaabooyinkaas waxaan filayaa dadkii waayo arag u ahaa badankooda qayb badan baa halka fadhida, kana tirsanaa baarlamaanada Soomaaliya laga soo bilaabo 2000 ilaa hadda qayb ka mid ah halka fadhiya, ama aanan ka tirsanaynoo xilal kala duwan ka hayay oo goobjoog u ahaa oo dadka waayo aragnimadaas dheer lahaa gudoomiye Cabdi Xaashi uu halka ka mid yahay. Puntland maadaama ay nasiib u yeelatay inay noqoto maamulka burburkii kadib u horeeyay oo Soomaalidu dhisato oo ogolaa dowlad Soomaaliyeed oo mid ah oo 98 dhismay, waxay mar walba ka shaqeyn jirtay sidii loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed oo la isla ogol yahay nidaamkeeda xukunka. nidaamka xukunka ay Puntland raadinaysay ama ay mar walba ay u soo bandhigaysay ee federaalka ahaa waxaa lala qaatay 2004 jiritaankeedii 6 sano kadib. carta jaartarku kuma dhignayn inuu dalka federaal yahay, laakiin markii la joogay Embagaati ayaa lagu qoray inuu dalkan federaal yahay. dastuurka geedi socodkiisa qayb weyn ayay Puntland ka ahayd, mar walbana u taagnayd. waxaan rabaa inaan u soo dhawaado maraaxiisha siyaasiga ay hadda taagan. dabcan aqalkan wuxuu ka mid yahay aqalada nidaamka federaaliga ah ee Soomaaliya qaadatay ee isku raaceen, waana aqalka la rabo inuu isku hayo dalka dowladihiisa xubnaha ka ah iyo dowladda dhexena u fadhiya. runtii inaan maanta soo booqdo ani sharaf weyn bay ii tahay, waxayna markhaanti ka tahay muhiimadda ay u leedahay Puntland aqalkan. waxaana ballan qaadeynaa inaan garab u noqono, wax walba oo uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino. waan dareemi karaa marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan, laakiin waxaan marna suuragal ahayn sharci lagu heshiiyey oo siyaasiyan looga heshiiyey in dib looga noqdo. kaas waa adagta, kaas wuxuu dhaawacayaa wixii la soo qabtay.
ummadu waxay ku wada joogtaa waa heshiis bulsho oo aasaas uu yahay dastuurka hadda inta noo taalla waxaan annagu mar walba taageeraynaa wixii hadda aan ku heshiinana in la dhowro waxa qabyada ka ah ee aan lagu heshiinina laga doodo maalinta laga heshiiyana uu noqdo sharci cid walba ka sarreeyo in la ixtiraam u baahan hadday cid dood ka qabto sharci lagu heshiiyey ay u marto habka sharciyada dib loogu eego oo waddadaa sharciga ah loo maro dib u eegidsiisa haddiise heshiiskii iyo qoraalkiisu u yaallo inta badan waxaan rajaynaynaa in lagu dhaqmo dabcan puntland way mudan tahay hadda maadaama xaalad deganaanshana ay ku jirto maamul 22 sano jirsadana ay ahaato inay xil gaara iska saarto in ay iyadu markan ay waqti badan geliso ilaalinta sharciga iyo dastuurka wax uu yahay waa shaqo dheeri ah oo aysan u lahayn laakiin ay mudan tahay marxaladdan inay qaado maadaama isteedyada kaleeto ayna ka dambeeyeen culaysyo badan oo ay haystaan oo dhinacii maamulka dhisidiisa ah amniga ka shaqayntiida ah marka haddii marar badan la arko puntland oo intaas qodobo dastuuriya haysata ama ku andacoonaysa ma aha dastuurka iyo sharciga inay dadka ka xigto laakiin firaaqo iyo waqti baan u haynaa iyo aan ugu fikirno ugana hadalno marka taas waxay noqonaysaa inaan wakiil uga nahay cid kasta oo Soomaaliyeed oo sharcigaas heshiis ka gashay oo markaas aan ka hasho u haynin laakiin waxaan diyaar u nahay wixii aan tabanno ama aan dareenno in ay xadgudub ay ku tahay sharciga inaan waddo saxana marino dood dhabana ka dhiibano waxaan rajaynayaa aqalkan oo runtii muddada uu jiray iyo shaqada uu qabtay ay aad u kala baaxad weyn yihiin waxaan uga mahad celinayaa muddadaas kooban ay joogeen oo dhismihii aqalka xaggiisa sharciga ah xeer hoosaadyadiisa shuruucdii dalka oo ay qayb ka qaateen iyo dowrkii odaynimo oo aqalka sare ah oo shuyuukhdaha oo ahaa in ay dowrka siyaasiga qaataan dabcan baarlamaanadu ama baarlamaanku waa xeer dejiye haddana waa hay-ad siyaasiya oo la rabo dalka maraaxisha adag maraya inay dowr ka qaadato inay isu soo dhaweyso bulshadan muddada dheer kala irdhowday dabcan ma inkiri karno bulshadeenna Soomaaliyeed ee 60kii xorriyadda qaadatay qayb baa waxay leedahay waa go'nay qayb baa waxay leedahay dawladda hadda jirta ma aqoonsanin oo wili dhul ka mid ah dhulkii Soomaaliya haysata oo cidii rabta ha u haysay Soomaali ah qayb baa wili shaki kaga jira nidaamka federaaliga ah qayb baa wili shaki kaga jira iyadoonan kuwaas dawladnimada diidan ahayn haddana dawladnimada in lagu dhaqmo shaki badan kaga jiraayo aaminsan in dawladnimada mar kale lagu dulmin doono xanuunkaas jira oo u baahan si dhaba in loo eego oo u baahan si miyir qabta in loo lafaguro iyadoo aan la iska riixin waan dareemi karnaa marxaladaha doorashadu jiraan inay xumadeeda gaarka ah leedahay oo qof walba oo uu ilaawi karo midda caamka ah oo midda gaarka isaga oo inuu waqti geliyo xaqna uu leeyahay laakiin waxaan rajaynayaa inaysan isaga kaaya khaldamin xumadaha ama duruufaha doorashooyinka iyo dawlad dhiska dalka Soomaaliya inay laba noo kala ahaadaan maxaa yeelay haddaad adigu dhismaha ka qayb gelin hadhow markaad xukunka qabatid ruuxadaada caqabad ku hortaale noqonaysa waxaan ka rajaynayaa aqalkan in uu u istaago hadday dad kala maqan yihiin iyo hadday kugu wada joogo wada shaqayn la ay yihiin dowrka odaynimo oo laga filayo inay qaataan ama ha ahaato baarlamaanka qaybtiisa kale aqalka hoose ah ama ha ahaato dawladaha ay xubnaha ka ah oo iyagu mas-uulka ka yihiin ama ha ahaato hay-adda fulinta ee dawladda dhexe oo runtii xasuustii muddadii 30 sano oo ka horreeyay 30 sano oo burburka ah oo dawladda ahayn dadku u barteen inay dawladda dhexe tahay dawladda xaqa u leh wax kasta inay iyadu ay ka shaqeyso dabcan nidaamka federaalku waa kala xadidayaa dawladaha xubnaha ka ana shaqo siinaya dawladda dhexena shaqo siinaya shaqooyinkuna waxa lagu kala hagayaa waa xeerarka ku saabsan dhinaca federaaleynta dalka wax badan baa wali qabiyo ka ah cid laga sugaayana waa aqalka waa baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal dabcan hay-adaha fulintuna waxay u baahan inay gacan ku siiyaan
dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ruuxadooda waxay leeyihiin baarlamaano ka kabaya baarlamaanka dowladda dhexe dhinaca shuruucda iyo hirgelinta iyo kormeeridda wixii heshiiska lagu ahaa waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha qabyada naga ah laakiin la yaabi mayno inay qayb qabyo naga tahay laakiin waxaa khalad noqonaysa wixii qabyada naga ah inaan la isku dayin in wax laga qabto dabcan puntland shalayna waxay u taagnayd midnimo soomaaliyeed iyo dalka horumarkiisa waxa ay dhuusamareeb 1 iyo 2 u joogtay waxay ahayd wixii culays oo jiray in laga baxo waxaad ogtihiin imaanshaha dhuusamareeb la yimaaday ma aha inay dowladuhu kaliya ku shireen waxay qayb ka ahayd nidaamka dowlad dhiska Soomaaliya waxay garab iyo gaashaan u noqotay dowladda galmudug oo runtii muddo khilaafaad ka jiray doorasho cusub ka dhacday waxay u ahayd inay dhiirigelin ugu noqoto in nidaamka dowladeed uu taabo galo waxaan runtii farxad gaar ah gelinaysa in intaan dhuusamareeb baabuur ka raaco oo gaalkacyo ku tago waxay qayb ka ahayd nidaamka aan kaga shaqeynayna dalkan wadajirkiisa dhibaatooyinkii soo maray in meesha looga saaro in dowladnimada la taabageliyo dhuusamareeb 3 wixii ka dhacay golahan ku furfuri maayo waan u imid waan ka ballansannahay madaxweynaha xalim aan habeen hore aan wada cashaynay haddana waan ballansannahay waxaan rajaynayaa dalkan in waddo sax ah loo furo oo dantiisa ka talinaysa dabcan qayb baan ka noqonaynaa waana u soo diyaar garoobnay intay qaadanayso ha qaadatay oran mayno maalmaan joogaynaa hadday kalifayso bilow waa joogaynaa in xal Soomaaliyeed la helaan diyaar u nahay waxaan rajaynayaa xalka Soomaaliyeed inuu dad gaar ku koobnaan madaxda fulinta ee dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda dhexe iyagay tahay shaqadooda koowaad laakiin waxaan garowsanahay in shaqada ay nala wadaagaan baarlamaanka Soomaaliyeed baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dadka kale ee Soomaalida ah ee mudan in talada laga qayb geliyo maxaa yeelay wada ogol marka la leeyahay ma aha dhowr qof kaliya inay wax isla ogolaadaan waa in dalka wixii ay iyagoo ka fakeraya dareenka dadka qaadaya waxay ku heshiinayaan oo inay noqotaa wax dadku ay soo dhaweyn karaan oo ay aqbali karaan taasna kolley qof kastoo mas'uul xil baa ka saaran waxaan rajaynayaa qofku ilaa maalinta ugu dambaysa oo ciddii bedel lahayd timaado faakum ma jirayo inkastoo xilligii gabagaba yahay ruuxadiina doorashooyin ku jirtaan laakiin waxaan aad u rajaynayaa doorkiinu inuusan hakad gelin qaadataan doorkiina odaynimada annagu gar idig baan naho garta idinkaan inii dhiiban horena waa inigu dhiibanno hadduu qire haddii cid garta diidda ay jirtana inaan laga daalinna waa ku dareenaayo la sii wado ilaa la helayo wax laysla ogol yahay dalkan marxaladda uu ku jiro khilaafaad ma xamili karo kala qaybsanaan aragtiyeedna ma xamili karo maxaa yeelay Soomaali waxa ay isku khilaafi karto ani ima muuqdaan war dalkeena nabadiisa aan ka shaqeyno deganaanshiisa aan ka shaqeyno cidda khilaafsan cid mas'uuliyad dowladeed qaadi karta ma aha cidda taad khilaafsan waa cidda al-shabaab iyo nimanka shayaadiinta dowladnimada diidan waa u fahmi karaa laakiin cid kasta oo dowladnimo Soomaaliyeed rabto deganaansho iyo nabadgelyo iyo horsocod siyaasadeed iyo mid sharciyeed cidna ma diidi karto insha Allah waxaan rajaynaynaa taas in dareenka dadka wax loo sheego bulshada Soomaaliyeed hadalka waa u daawo laakiin hadalka lagu hadlayo inuu noqdo hadal aan turxaan lahayn oo ka fiirsasho leh in dadka la hadlo u baahan yahay in dadka rajadooda la soo celiyo u baahan yihiin in dadka xaqiiqada loo sheego iyadana way u baahan yihiin si ay talada qayb ugu darsadaan waxaan u rajaynayaa dalka Soomaaliyeed nabadgelyo deganaansho horumar doorasho waqtigeeda ku dhacda dadkuna isla ogol yahay si nabadana ku dhacda wax kasta oo Soomaali dan u aragto Puntland way taageeraysaa ajanda gaar ah ma leh waxay rabtaa in dalkan uu deganaansho ka dhaco waxaan si gaar uga mahad celinayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha maanta fadhiya annaga sharaf gaar ah noo ahayd maanta inaan halka inagu soo booqanno in la wadaagno dareenkeena kiina aan dhageysano ku darsanno wixii aan iniga maqalnay shaqooyinka aan hadda halka u joogno
shirkan maanta booqasho iyo soo dhaweyn buu ahaa laakiin shaqadu way soconaysaa si gaar gaar ah ayaan u wada tashan doonaa oo mar walba wixii markaas u habboon oo aad u aragtaan inaad taladaas nagu biirsaan annagu diyaar baan u nahay waxa keliya oo mararka qaarkood ismaandhaaf uu ka dhacaa dadka qaybtiis waxaa ku fogaaday xalalka siyaasiga ah oo wax walba waxay rabaan xataa hadduu sharciga khaldan yahay in laga gudbo marxaladaas dalku ma dhismaayo anigu waxaan qabaa shuruucda aasaasiga ah inaan la fududayn intii la kari karo oo lagu adkaado si dalku uu u dhasho foundation sax haddii sharci kasta oo gudhig u noqon lahaa dowlad dhiska la dhaho ha la iska dhaaf ama ha laga tago dad badan aan marmar waxay yidhahdaan waxa aad rabtid noo sheeg oo aad garanaysaan waxay ula jeedaan dadkiina badankiina hadda siyaasadda ku jira waxaan idhahdaa waxaan rabo waa dowladnimo wax kale oo aan rabno male maxaa yeele wax kaloo na deeqi karaa male dalkan intii aan soo joognay dadka ugu badan oo aan dalka ka bixin baan ahaa ama ka agdhowaa meesha la joogana hadda u jeeda dalkan wuxuu u baahan yahay in si dhab ah loo galo xaqiiqada la iska dhaafo danaha shaksiga ah iyo damaca qofka laakiin la aado marxaladda xaqiiqiga ah oo isbeddel dhaba lagu sameeyo aniga hadda 4 sano dhow baan ka maqnaa intii aan muqdisho joogay wax isbeddel aan arkay ma leh wadada hadda aan soo maray waan dheyndeynayay wax ku kordhay ma leh bulshadu sidii bay u cabsanaysaa dalku sidii buu weli u burbursan yahay dowladnimadu sidii bay isaga daba wareegaysaa marka intaas aan waxaan qabaa inay nagu filan tahay maxaa yeelay raad arooriya dib looma raacaa la yidhi wixii shalay khaldanaa khaladad badan baa dhacay khaladaadkaas haddii aan ku noqnoqonno hore uma soconayn aan waxaan qabaa khaladaadkan inaan iska gudubno dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan baarlamaanka soomaaliyeed ee heer federaal xubnaha ku jira iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxdooda iyo baarlamaanadooda waxaan ani aaminsanahay in ay waqti geliyaan marxaladda aan ka jirno si wada jira inaan uga baxno aragtida kala qaybsan waxaa la rabaa inaan god intaan lala gelin qol mugdi ah aan la oran waa la iskhilaafsan yahay fagaarayaasha intii la lis yimaado la garnaqsado wixii halkaa lagu heshiiyana halkaa looga gudbo baarlamaankan halka waa doodaan xerar baa isku khilaaftaan cod baa loo qaadaa cid ka daba hadasha ma leh anu waxaan qabaa arrimaha masiiriga ee siyaasiga ah gogol intaan ka ballaaran ha loo dhigo qof walbana doodiisa ha dhiibto dalka waxa danta ugu jirta ayaa qofkii kaleetana danta ugu jiraysa hadduu markaa xataa dan u arkaynin dantaasaa asal ah dowlad dhiska inaan marxaladiisa qiimeynaa asal ah wadajirka inaan qiimeynaa asal ah inaan isu dulqaadanaa asal ah aad baan inaga mahad celinayaa kulankan iyo fursaddan ay siiseen inaan halka hadal ka soo jeediya isugu jirta warbixinta iyo awal booqashaa islahaaye warbixinta badankeeda guddoomiyaha iga keeno meelo badan taataabtay marka iyadana inaan ku daro way mudnayd aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu